la taliyeen madaxweynaha Soomaaliland dhinaca arrimaha bulshada Fuad Aadan Cadde oo la socda waftigii uu hogaaminayay wasiirka caafimaadka Soomaaliland Dr. Suleymaan Xagla Toosiye ayaa xalay soo gaaray magaalada Burco kadib markii ay ka soo kicitimeen degmada Xuddun ee ka tirsan gobolka Sool. Fuad Aadan Cadde oo maalmuhu dambeeyay warbaahinta Soomaaliland ka qoraysay inuu xamaamadiisa ka urursaday Soomaaliland una sii jeedo dhanka Puntland oo hadda sugan magaalada Burco ayaa waraysi u siiyay telefishinada Home Cable TV iyo qaranka waxa uu ku sheegay in arintaasi ahayd male aan la hubin oo la iska faafiyay isla markaana waxa uu xusay in aan u gudbaynin dhinaca magaalada Hargeysa oo ku sugnaan doono magaalada Burco. wallahi niyadeyda kuma soo dhicin habeenayna Soomaaliland ka tago Xuddun baan joogay Xuddunna waa Soomaaliland ciidamadii qarankaan wada joognay maamulkii baan wada joognay niyadeyda kuma soo dhicin waxaan filayaa inaan ku soo dhacaynin inaan Soomaaliland ka tago waxaan horaan u iri markaa dhinto waan ka tegay inkastoo dee uun iyada ciideedii laygu xabaalayo. Fuad Aadan Cadde oo ka jawaabaya su'aal ahayd in wafdiga horkacaya wasiir Xagla Toosiye ay dib ugu soo ladqabeeyeen dhanka Soomaaliland kana soo kaxeeyeen Xuddun ayaa waxa uu yiri Xuddun jooga Laan-dheereeyey Qasab Burco laygu keenay marka Imuu soo Lad-qabaynine wuu soo Xoogay WAsiirku Isagoo Kaashanaya Cabdirashiid iyo Kalash ay saaxiib yihiin marka xoog baa Burco laygu keenay hadda WAsiirku wuxuu kaga adkaaday inuu Xuddun iga soo qaado oo i keeno Burco anna waxaan kaga adkaaday inaan ilaahdo mar haddaan Burco joogo Hargeysa ku raacimayo nabadgelyo. mar kale Fuad oo ka jawaabaya arrimaha ay ka wada hadleen Ali Khaliif Galayd oo xidhiidh dhinaca telefoonka ah dhex maray iyo saameynta maamulka uu sameeyay ku yeelan karto Soomaaliland iyo arinta xaabsade ee uu talaabay dhinaca Puntland ayaa waxa uu yiri anigu waxaan aaminsanahay Ali Khaliif maanta daab iyo aqli iyo cilmi iyo maskax uu maanta dagaal ku galo ma qabo anigu ma qabo inuu wadada raaco waxaan qabaa inuu Soomaaliland la xisaabtamo inuu yiraahdo dhiga xitaa 23 sanadood ee naga maqan xaqayagii Soomaaliland ku maqan yahay inuu raadiyo xabsada Soomaaliland markuu joogay waxna waa ka sheegi jiray waana murmi jiray waana wada hadli jirnay laakiin hadda hadduu garowe aaday waxba ka sheegi maayo.